magaaladan waxay caam ku tahay saddex kulmis bad iyo berri beero laga abuurto leh iyo xoolo intaasay kulansatay Ceeldheer waa magaalo geeska ku haysa biyaha badweynta Hindiya iyo deexda gobolka Galgaduud waa degmo qadiimi ah oo geeda gaaban dadkeeduna waa xoolo dhaqato kalluumaysato iyo beeraley xilli ku beegan dagaalkii dunida ayaa la soo degay degmadan iyadoo ay dadku ka soo guureen mareeg oo isla degmadan ka tirsan laakiin waxaa si rasmi ah degmada loogu dhawaaqay sanadkii 1962 laba sano kadib markii ay Soomaaliya xorriyadda qaadatay waxayna markeedii hore ka tirsaneed degmada Ceelbuur oo ay ka wada tirsan yihiin Galgaduud Ceeldheer waxaa ku yaala ceelal dhaadheer mitir ahaan inta ay dhulka qodan yihiin waana sababta loogu bixiyay magaca Ceeldheer magaca Ceeldheer wuxuu ku baxay ceeshaan magacooda ceeshaana waxaa jirta 8 baac meel la yiraahdo 12 baac ama la dhihi jiray waa 8 baac 8daas baac waa taqaaniin inta mitirayta waa kartiin baac ceshaad aragtay magacu wuxuu ku baxay waa ceesha dheer Ceeldheer ceelka dheer inta qodayhiina dheer saasoo ku baxay galguduud soo raacna hadana markaan galguduud soo raacno deegaankii oo waxa la yiri degmooyinku hala yareeyo wax ilaa Soomaaliya mugaas kadib afool ah waa la yareeyay waxaan saaray Ceelbuur degmo noqotay degmada Ceelbuur oo inta isku dhaqatay haddana lagu soo koray ilaa muddo la soo joogay 60kii iyo kowdii bugay tahay 60kii labadii aano Allah aasay inay ka soo go'do sanadkii 1956 markii Soomaaliya loo diyaariyay dawladnimada iyo xorriyadda baarlamaankii ugu horeeyay Ceeldheer waxaa ku matalayay Cusmaan Xaaji Maxamed Afrax xildhibaanada kale ee degmadan soo maray kana tirsanaa dawladihii ugu horeeyay ee dalkan waxaa ka mid ah Cali Geedi Shadoor Cabdullaahi Gacal iyo Isaaq Iidow ilaa haddana baarlamaanka Soomaaliya waxaa ku matala 4 xubnood oo labada gole ah dawladda Soomaaliya dhaltada marka dhulka xildhibaanadii la wadaagay waa markii ugu horeysay qodobkii iyo 60 waa xildhibaanadii la wadaagay hal niman naga soo gaar markaas xildhibaanadii inta laga diray maxad afrax waxa la dhihi jiray Ismaan Xaaji Maxamed Afrax la dhihi jiray ninkaas inta ka dirlay gaalka ayuu tagay warqada ka qaatay xamar oo tagay dibutaatan ku dhaqdo waxa ku dhaqdo xildhibaan mugaas waxa meesha la ka xukumaa meesha la yiraahdo Ceelbuur degmada Ceeldheer waxaa ka soo jeeda dad ilbax ah oo caan ka ah gudaha Soomaaliya gaar ahaan siyaasadda diinta iyo ganacsiga siyaasiyiinta iyo saraakiisha ciidan ee soo maray waxaa ka mid ah Janaal Daawud Cabdulle Xirsi Cali Geedi Shadoor iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo ah madaxweynaha kaliya ee 2 jeer loo doortay dalkan dhanka culimada Sheekh Daawud Culusow Sheekh Ibraahim Sheekh Maxamuud oo caan ku ah magaca Sheekh Ibraahim Yare Macallin Nuur iyo dad kale oo caan ka ah gudaha dalka muga ugu horeysa culimada ugu waaweyn oo meeshan aad u camirtay tilmaantana aad looga qaatay Sheekh Daawud Culusow Sheekh la dhihi jiray ugu weynaay Sheekh la yiraahdo Sheekh Ibraahim Sheekh Maxamuud oo Sheekh Ibraahim Yare la yiraahdo oo masagaway ku dhashay haddana masagaway ku dhintay wadankan hadda aan joogno masagaway iyo nawaaxiga dhulkaas la joogo sida Sheekh Ibraahim u yimid Sheekh hortiisa lagu dhigaa lama arag Sheekh Daawud mugu dhintay oo Sheekh Daawud qabsaa leeyahay heer dadkoorna dad heer magaala oo ahaayo aad iyo aad ilmaxiyo ugu aho Daawud Cabdulle iyo meesha ku bartaan waa mareeg Cali Geedi Shadoor iyo Daawud Cabdulle iyo meesha ku dhasheen waa mareeg ay ku dhasheen hadda waa maqashay Daawud Cabdulle iyo og tahay waxa waay ciidamada iyo waxa ka ahay waa meeshaas caamka oo dadkoorna ilmaxay dawladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan al-shabaab kala wareegtay degmadan kadib 13 sano oo ay ka maqneed gacanta dawladda Ceeldheer inkastoo magaceedu weyn yahay hadda waa magaalo la ildaran dayac iyo duruuf badan waxayna u baahan tahay gacan dawladeed iyo mid deegaan magaaladu waxay u baahan tahay horta koow dadkii waa ka qaxay nimankii abtaleysnaay waxay sameeyeen absigelin wax la yiraahdo haddii dadka qaxana qaxootiyo noqdo dadka wuxuu u baahan yahay muga dadkaas xanaanayn iyo soo celiska anaga ka rabaa
xanaanadii dowladda hoose dowladda dhexe laga rabaa ummadaasu inay isugu timaad oo dadkii mahan ku dhashay amba ka ganacsan jiray amba ka dhashay inuu isugu yimaaday rabtaa oo dhibaatada ay teeraa in la isla arko la isla dhameeyo dhulku waa xor qoftaan ogeynu ha ogaato inay xor tahay samaacadan haddaan la iska arkaayo ayda ruuxa galabtay xurugdo ayda lafteedu waa xor maxaa jira ma hadli karin hadda waa hadli kartiin mugo ma wareejin karin hadal idinka xornimada bertaas walay ka qabtaa xornimada